السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن، ظهر وناكسن، قلب وناكسن، عصر وناكسن، هبين وناكسن، قفل بوحي كوت هاي وسلام يا سلام تسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرلوات يمانتي فيديو كله وكسابسن هرددا iyo si aad ku samayn karto inaad hesho hurdo aad u macaan haddaad raacdo talooyinkaygan. maantay bannaanka ayaan idiin soo saaray sababtoo ah imtixaan ayaan leeyahay berri, marka waxaan u socdaa jaamacadda biblioteegeeda si aan wax ugu soo akhristo. idinkana waad i raacaysaan, marka ila socda. inta aan safarka ku sii jirno waxaan rabaa inaan idiin sheego 10 waxyaalood oo ay tahay hurdada ka hor inaadan samayn si aad u hesho hurdo wanaagsan. number 1 waatana dhageyso ka horna waxaan rabaa inaad ka fikirto inaad subscribe garayso oo like مسلمي كورتو نجاش مغلي معجزة تدي دقا هدان مصبارك أودان مغلي واركاقي مش حارن مركياد وتيمي دسارتي مدينة محوبة دي نبي نوي inaad sameeyay habeenkii waxa weeyaan inaadan isticmaalin telefoonka markaad seexanaysid ka hor, sababtoo ah telefoonku wuxuu soo bixiyaa iftiinkaas oo maskaxda siraya oo ka dhigaya in ay maalin noqotay. haddana waxayna joojinaysaa maskaxdii maado la yiraahdo melatonin oo ay maskaxdu soo sii daynayso si qofku u daalo oo hurdo u helo. laakiin markii iftiinkaas maskaxda ku dhaco, maskaxdu waxay joojinaysaa maadadaas, qofkiina wuxuu bilaabayaa wareeg cusub oo ah inay maalin noqotay oo maskaxdii waxay ka soo bilaabaysaa subaxdii, haddana taasoo keenaysa hurdo la'aan. mana u fiicna caafimaadka. run ahaantii hurdo la'aanta meehe habeenkii ama sariirta oo lagu isticmaalo telefoonka waxay kaloo dhalisaa ayaa la yidhaahdaa ilowsho. jaamacadda hadda aan tegi doono ee Uppsala University studio lagu sameeyey ama baaritaan lagu sameeyey waxaa la yidhaahday oo gabadh la yidhaahdo Frida Tongel la yidhaahdo ay madax ka ahayd Madiine wuxuubadii nabigeenu igu maran akhlaaqoodu ammaantiisaniga maran kama maarmo madxigiisu igu mudan giya sharafe behen baa kugu manaysto quraankana meela badan adi kugu macaniye maktabada u sarraysa aadmigaada mutayste murtida dhimaane number 2 intaan u gelin waxaan rabaa meeshaan jooga inaan idiin sheego. baarkigan waxaa la yidhaahaa Englishka Barkan, waa qayb ka mid ah xadiiqadaha jaamacadda Uppsala, weliba qaybta la yidhaahdo Englishka Barkan oon hadda u socdo. aan rabo inaan soo fadhiisto cashar ku soo akhristo. gudaha markaan galo ayaa idin tusayaa siday tahay, laakiin maadada labaad ay tahay inaynaan samayn qofku inuusan samayn markuu seexanayo waxa weeyaan in uusan guriga kuleyl ka dhigin. kuleyl guriga haddaad ka dhigtid temperatureka jirkaaga ayaa kacaya, kadib dhiiggii ayaa kululaanaya, jirkaaga ayaa kululaanaya, kadibna hurdada inay kugu adkaato aad helin ayay noqonaysaa. sidaa la'alligeed guriga waa inuu yahay temperature qabow ah. alaaba Soomaalida waxay jecel yihiin kuleylka, elementiga kor bay u qaadaan, elementiga weligaa hoos u dhig haddaad rabto hurdo fiican inaad heshid. waa maadada labaad ina keena. okay, hadda waxaan imid jaamacadda albaabkeedii. waxaan ka gelayaa albaab yar oo halkan ku yaala 3B
albaabka kale gaari baa taagan waxbaa lagu dejinayaa waxaan u baahanahay si aan u galo koodkaygaas waa inaad haysataa oon meesha saaro marka jaamacadda Uppsala University iyo jaamacadda Stockholm University farqi baa u dhaxeeya Stockholm University qof walba ayaa gali kara macnaha forelasninka ama lecturada qof walba ayaa ka qayb qaadan kara iska soo gali kara laakiin jaamacadda Uppsala University waa jaamacad xiran waaye ardada un baa gali karta marka meeshaan aan saaraya calaamadeyda albaabkii waa ii furmay kadibna hadda gudihii baan ku jiraa number 3 maadada saddexaad oo tahay inaad samaynin hurdada ka hor ama marka hurdada sariirta atigiisa ka hor inaad sameyn waxa waaye inaad cunin cunto badan adoo gaajoon aad sariirta tagin hadaa cunto badan cuntid calooshii waxay bilaabaysaa shaqo energy ayaa wuxuu ku baxayaa si cuntadii digestion loo sameyn lahaa sida la aligeed waxaad seexanaysaa hurdo qarow ah oo aan fiicnayn hadii aad gamaadidba hadii aad gamaadidna hurdo bila quality aad seexanaysaa hadii kalena maba gamaysidba marka cunto badan ha cunin cunto yarna ha cunin waa maadada saddexaad okay now I'm in هذا جودها يان سو galay marka waan iska dhameystirnaa maanta roob baa xoogaa iska da'aya marka saalooyinkana waa la farfaliyaa marka waan soo gabagabeynaa maadada afraad waxa weeye inaad iska ilaaliso shaaha ama kafeeto ah alaab dadku waxay yiraahdaan kafeega ha cabin markii aad seexanayso ka hor sababtuna waxa waaye kafeega waxa ku jirta maadada la yiraahdo caffeine oo qofka ka dhigta qof firfircoon gelisa laakiin se waxay meesha aysan ogeyn inuu meesha alaab laga saaraa inuu shaahuna uu ku jiro caffeine sida aligeed shaahna ha cabin kafeena ha cabin hurdada ka hor adii 4 saac 5 saac waa inay u dhaxaysaa kafeegaaga ugu dambeeya ama shaahaaga ugu dambeeya iyo xilliga aad seexanayso maadada shanaad waxa weeyaan in example base ama tusaale ahaan haddii aad qof la sheekaysanayso oo aad message isku dirdireysaan inaad message-kii aad sheekadii soo gabagabayso oo aad tiraahdo waan seexanayaa markaad sariirta tegayso aadan garanaysaa sheekadii kala barmarayso qof adoo message ka dhigaya haddaa la yarka dambeysida hurdo isku diyaarisa maanta dhan waxa kugu taagan in aad waxa kugu taagan in uu magaranaysaa qofkii uu kugu soo jawaab celiyo marka telefoonkii baaniyadaada ku maqan tahay habood fiirinaysaa qofkii jawaab miigu soo celiyay sida la aligeed markaad seexanaysid sheekooyinka oo dhan soo gabagabee oo mac salaamo waan tegayaa sariirtan tegayaa marka la hayno ahaato qofkii ku dhashay sheekada soo gabagaboodo oo arrinkaas aad iskaga soo xirto midda lixaad waxa waaye markaad seexanayso walibana dadka waaweyn ay arkaa qosaysa dadka yarka dhalinyarada way qosayn kartaa dadka ilaahay isku sii uma wada abuurin waxa weeyaan inaad biyo badan cabin haddaad biyo badan cabtid oo seexatid habeenkii hurdada ayaa inay ka qasto ayaa laga yaabaa oo aad musqusha aado kadibna aad kugu adkaato inaad hurdadii aad ku laabato sida la aligeed weliga markaad seexanayso hurdada ka hor biyo badan ha cabin sababtoo ah hurdada ayay ka qasaysaa waa maadada lixaad maadada toddobaad waxa weeyaan in aadan hurdada ka hor aadan rabshad abuurin ma garanaysaa haddii aad tihiin lamaano oo kale marka hurdada la tagay oo kale inaan rabshad abuurin oo ma garanaysaa inaan buuq isku buuqin haddaad isku buuqdaan dee hurdadii way xumaanaysaa carar dhalanaysaa kadib waxaa imaanaysa inuu qofkii wixii lagu buuqay uu ka fakero oo ma garanaysaa uu markaasna hurdadii ay idinka xumaato soo haddii aad qoys tihiin ama dad isla deganaad tihiin markaad hurdada tegaysaan camal oo kale weligiin buuqa iska furinana waxaa dhammaysaan rabshadaha iyo xaaladaha adduunyada ka hor intiina maalintii ay tahay oo banaanka la joogo soo gabagabeeya si aad hurdo fiican u heshaan
maadada sideedaad waxa weeyaan inaad ka fikirto berri waxaad samayn lahayd. berri waxaad samayn lahayd haddaad ka fikirto oo caawa dhan markaad hurdada tagto aad berri arrimo ku yaala sidee wax u qabtaa xaggee wax dhigaa istiraahdo fikirkii ayaa kula dheeraanaya kadibna saacaddii oo sii socota ayaad arkaysaa saacaddii oo sii socota markaad aragtana waxaad is leedahay waa inaan seexdaa saacaddii waad iga dhammaan rabtaa kadibna stress ayaa abuurmaya taasoo kuu diidaysa inaad seexato 2 saac baa dhiman 3-4 saac baa waagii ka dhiman waa inaan seexdaa haddaad tidhaahdid hurdadu way kaasii fogaanaysaa sidaa la adligeed waxba ha balaaneerayn markii aad seexan rabta berri waxaad samayn lahayd sii balaaneerayso waqti hore.